muddo ka badan 100 cisho ay ku jirtay xabsi ku yaala magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley oo hore maxkamadda gobolka Muqdisho ugu xukuntay 3 sano xariga waxay cabbaara 9kii subaxnimo ee saaka dib u heshay xorriyadeeda qaybo ka mid ah warfideenada ayaa ku booqday Hotel Star oo markii xorriyadeeda heshay loo soo gudbiyay iyadoo ay welinayaan waalidiinteedii sidoo kale qaybo ka mid ah qareenadii u doodayay Mubaarak Cabdi Ismaaciil waa qareenkii u doodayay sidoo kale Abwaan Axmed Ibraahim oo aabaha dhalin Nicimo Qorane ayaa halkaas warfideenada wadajir u la hadlay Nicimo Qorane maxkamadda gobolka Muqdisho 15 bishii saddexaad ay ku xukuntay 3 sanadood xarig ciqaabeeda codsi ka yimideen ehelada Abwaan Nicimo iyo Nicimo laftigeegaba oo loo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa runtii madaxweynuhu ka jawaabay codsigii ehelada Abwaan Nicimo waxaana maanta Nicimo soo baxay go'aankii xorriyadeeda lagu soo calinayay Nicimo maanta xabsiga Gabiley laga soo daayay runtii waxaana aad uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo taliska xabsiga Gabiley iyo runtii taliska ciidanka asluubta ururada xuquuqul insaanka qareenadii kala difaacayay warbaahinta madaxa bannaan iyo runtii cid kasto af iyo adinba kaga qayb qaadatay sidii ay Abwaan Nicimo Axmed Ibraahim u heli lahayd xorriyadeeda marka maanta ma sha Allah weynantii waxay shifeynay xorriyadeedii waanu mahad celinaynaa madaxweynaha iyo cid kasto fudeysay soo deynta Nicimo kana xumaatay xarigeega iyo xukunka ugu dhacay sugayay horta ilaahay baa mahad leh ilaaha maaragtay subxaanahu wa tacaala deynantayda intuu xabsi geliyey oo 3 bilood iyo bar ku xidhnayd maantana xorriyadeedii u soo celiyey ilaahay baa mahad leh hore mahad ilaahay baa iska leh arrintuna waxay ku timi waa qadarka alle oo waxaan way qadareed waxay hees baa oran jirtay waa maadaysa dunida dadkuna way matalayaan marka horta ilaahay baa qadarka waxaan xukumay intii la xidhay ilaa maanta ciddii ka qayb qaadatay soo deynteeda xorriyadeeda inay dib u hesho madax iyo mijaba meel uu joogaba waa u mahad celinay